Sheekh Maxamed Rashiid Garowe oo kamid ah culimada Soomaaliyeed dadka ku dabiiba saarista Quraanka Kariimka ayaa soo gaaray magaalada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud. Sheekh oo markii hore ka soo degay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa u soo gudbay magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud iyadoo sheekha iyo culimadii la socotay magaalada meel ka baxsan ay uga hortageen dadweyne iyo gaadiid aad u fara badan. Ugu horeyn waxa goobtii lagu soo dhaweynayay Sheekh Maxamed Rashiid Garowe ka hadlay Cali Suuro oo kamid ah bulshada sheekha ku soo dhaweysay magaalada Cabudwaaq. waxaan soo dhaweynaynaa Sheekh Maxamed Rashiid Garowe oo naga soo gaaray magaalada Muqdisho waxaan ku soo dhaweynaynaa xarunta Cabudwaaq oo ku leeyahay asaga iyo culimadii la socotay waa sheekul baladkii weeye waa culimadii waaweynad ka mid yahay wax naga soo gaaray wuxuuna quraan saari doonaa dadka xanuunsan daweyn doonaana dadka ma garanaysa buka wuxuu isugu jiraa dabiibka xagga diinka iyo xagga ma garanaysa dabiibka kale oo daweynta sida dhirta iyo ma garanaysa quraan saarka. Sheekh Maxamed Rashiid Garowe goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyay dadkii ku soo dhaweeyay kana warbixiyay xilliyada uu shaqada bilaabi doono. Ilaahay ayaa mahad iska leh si nabada nagu soo gaarsiiyay deegaanka Cabudwaaq mana aha runtii markii noogu horeysay horay ayaan u nimid oo maaragtay xarunta aan ka furay hadda sidii oo kale waxaan jecel lahay oo u nimid inaanu maaragtay walaalaha xanuunsanaya shayaadiin aljinni wal insi ay wax la yeelayeen dhibaatooyinka kala gedisan ay ku hayaan inaanu ugu nusrayno ilaahay kalaamkiisa jalla jalaaluhu insha Allah biidinilaahi ta'ala waxa mahad aan u soo jeedinaya ilaahay oo mahad oo dhan iska leh oo mudan kadibna maaragtay bahda meediyaha ee nagu soo dhaweysay magaalada Cabudwaaq iyo Sheekh Calaf oo maaragtay si gooni ah nagu soo dhaweeyay magaalada noona si joogay إن شاء الله بإذن الله تعالى وحن جعل الله حرمتي علاج كأني فرمي دونتو بيش صدحات شنت هذا إن شاء الله بإذن الله تعالى إلهي وحن أرجيني نادتك حنون سنة إنه إلهي وشافيه هو عافمات كقبنا إلهي وزياديه إن شاء الله بإذن الله تعالى أنت أنجوك دوننا إلهي بأوج آدي هذا يد مهد سنتهين خير بدنا يعني دين رجينا waxaan si gooni ah u salaamayaa dhalinyarada maaragtay ka qayb qaadatay soo dhaweynteeda. ugu dambeynna sheekha iyo culimadii la socotay ayaa loo soo gudbiyay xarunta uu ka degay magaalada Cabudwaaq iyadoo la filayo in uu sheekhu 5 bishan bilaabo shaqadiisa oo ahayd ku dabiibida Quraanka dadka markaasi xanuunsan. Bashiir Yuusuf Nadaara TV-ga caalamiga ee dalka magaalada Cabudwaaq.